بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. xafiiska xalaaliyaha guud ee qaranku wuxuu uu gacanta ku hayaa kiis musuqmaasuq ah oo markii hore ka bilowday wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada kadibna ku fiday wasaarado kale iyo hay'ado dowladeed oo qaybtood si toos ah ugu lug leeyihiin qaybta kaleetana ay si dadban ugu lug leeyihiin musuqmaasuqaas. xafiisku waxa uu sameeyay baaris mug leh oo qoto dheer oo la xiriirsan kiiskan isaga oo kaashanaya hanti dhowraha guud ee qaranka. waxa uuna gacanta ku hayaa cadeymo dhammaystiran oo ay ku jiraan jeegag, rasiidyo iyo boonooyin lacageed, heshiisyo loo sameystay in lagu musuqmaasuqo iyo cadeymo kale. waxa uu xafiiska u soo xiray kiiskan dad 20 qof ah oo ay ka mid yihiin agaasimayaal, waaxeedo iyo mid guud, madaxda barnaamijyada iyo mashaariicda ay wada wasaaradda caafimaadka, la taliyayaal, madaxda shirkado gaar loo leeyahay oo la shaqeeya wasaaradda caafimaadka, ganacsato iyo shaqaale iyo howlwadeeno kala duwan oo ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kale ee dowladda. waxa uu sidoo kaleeto xafiisku xayiraad iyo fatashaad ku sameeyay akoono kala duwan oo ay leeyihiin eedeysanayaasha iyo shirkado la xiriirinayo in ay qeyb ka yihiin musuqmaasuqaas si loo dabagalo xog dheeri ahna looga helo lacagaha lagu shubtay akoonadaas oo la tuhunsan yahay in la lunsaday. xafiiska xeeraryaha guud ee qaranku wuxuu ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in xorriyad ka qaadista dhammaan eedeysanayaasha loo maray habraaca sharcigu ogol yahay oo la marsiiyay dhammaan ijraa'aadka sharcigu tilmaamay ee la xiriirsan xorriyad ka qaadista qofka. xafiiska xeeraryaha guud ee qaranku waxa uu soo gabagabeeyay baaris qoto dheer oo la xiriirsan kiiska musuqmaasuqa ee wasaaradda caafimaadka. waxa uuna u gudbiyay maxkamadda awoodda u leh iyada oo la sugay in maxkamaddu soo mudeyso si kiiskaas loo dhageysto. xafiiska xeeraryaha guud ee qaranku wuxuu sidoo kaleeto baaris ku wadaa welina daba jooga wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed oo uu xafiisku tuhunsan yahay inay si weyn uga jirto musuqmaasuq. waxa uuna ka qaadayaa tallaabada ku habboon iyada oo sharcigana la horkeeni doono dhammaan dadka ay ku caddaato inay ku lug leeyihiin musuqmaasuqaas. waxa uu xafiisku u digayaa dhammaan dadka hababka musuqmaasuqa ku shaqeysta oo ka mid ah hay-adaha dowladda. waxa uuna cod dheer ugu sheegayaa in xafiisku soo qaban doono sharcigana la horkeeni doono qof kasta oo musuqmaasuq lagu helo. ciqaabta uu mutaysanayo qofkaasna aysan noqon doonin keliya in la xiro laakiin uu la kulmi doono ciqaab maaliyadeed oo ay ka mid tahay in qasnada dowladda uu ku celiyo qofkaas dhammaan hantida ay ku caddaatay inuu ka lunsaday ummadda Soomaaliyeed, taas oo kalifaysa in la xaraasho dhammaan hantida laga sameeyay musuqmaasuqaas. xafiisku wuxuu bulshada Soomaaliyeed u sheegayaa in uu dhammaaday waqtigii la iska daldalan jiray xoolaha ummadda iyo ku tagrifalka awoodda oo la galay xilligii isla xisaabtanka, sareynta sharciga iyo ilaalinta xoolaha ummadda Soomaaliyeed. si taas loo xaqiijiyana xafiisku wuxuu qaadayaa dhammaan tallaabooyinka ku habboon iyada oo aysan jiri doonin qof ka weyn sharciga si waddankeena looga cirib tiro musuqa aan kaalinta koowaad uga jirno sanad kasta. xafiiska xeeraryaha guud ee qaranku wuxuu u digayaa dhammaan dadka inta warbaahinta hor yimaada ka hor dhacaya baarista warbixino been ahna ka bixinaya kiis aysan maxkamaddu weli dhageysan go-aanna ka gaarin, garsoorkana ka sheegaya warar been abuura oo aan sal iyo raad toona lahayn, iyada oo laga dhigayo kiis kasta oo musuqmaasuq ah oo qof loo xiro mid siyaasadeysan oo dan gaara cid gaara ay ka leedahay. wuxuu xafiisku u sheegayaa dadkaas in arrintaas aan loogu dulqaadan doonin lagana aqbalayn in ummadda Soomaaliyeed lagu jahwareeriyo been abuur iyo warar beena oo aan sal iyo raad toona lahayn. ugu dambeyn wuxuu xafiisku kula dardaarmayaa dhammaan qoysaska iyo ehelada eedeysanayaasha inay ku kalsoonaadaan garsoorka ayna ku raadiyaan xuquuqaha ay raadinayaan sifo aan baal marsaneyn habraaca sharcigu ogol yahay, iskana ilaashaan tallaabo kasta oo ka baxsan sharciga iyo qawaaniinta dalka taas oo u soo jiidi karta in xafiisku qaado tallaabada ku habboon. wabilaahi tawfiiq.